السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Sela 24 iyo anigoo Cabsaaq Axmed barnaamijkan gaarka waxaanu kaga hadlaynaa jariirada wadanka Ingiriiska ka soo baxda Independent oo maqaal dheer oo ay maanta qortay ku sheegtay in madaxweynaha wadanka Mareykanka Trump uu aqoonsan doono maalmihiisa ugu horeeya Jamhuuriyadda Somaliland isagoo uu aqoonsan doono wadan cusub oo caalamka iyo geeska Afrikaba ku soo biira. warkan waxaa sheegay oo xaqiijiyay Govis Williamson oo ka tirsan xildhibaanada aqalka Ingiriiska ahaana wasiirkii hore gaashaandhigga iyo wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada ee dowladihii hore ee Ingiriiska. warbixintan oo aad u dheerayd, xildhibaankana wuxuu sheegay inuu kala hadlay dadka ugu dhow madaxweynaha iyo aqalka cad ee Mareykanka inay Somaliland aqoonsadaan, taana ay u qorshaysan tahay in madaxweyne Trump uu aqoonsado Jamhuuriyadda Somaliland si official ah uu aqoonsado. xildhibaanku wuxuu sheegay in dowladihii hore Mareykanka ay u diyaarsaneed inay aqoonsadaan, laakiin siyaasadda isbedelay dartood aanay taasi suuragal u noqonin. markaad eegto maslaxadaha caalamka ee soo kordhaya, tani waxay ku tusinaysaa in Somaliland dadaalkii faraha badnaa iyo samirkeedii faraha badnaa caalamku uu qirayo, wadamada reer galbeedkuna iminka yihiin kuwa ugu soo horeeya ee doonaya inay aqoonsadaan. haddaynu eegno 28kii dal ee u yimi Somaliland inay indheeyaan doorashada iyo qaabka ay u dhacayso. haddaba hadalka xildhibaankan wuxuu ku soo beegmayaa xilli Jamhuuriyadda Somaliland ay dooratay madaxweynaheedii lixaad ee ku yimi si dimuqraadi ah, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Somaliland xilligan waxay u taagan tahay dabaaldeg iyo doorashooyin ay in badan doonaysay caalamka inay ku qanciso in dimuqraadiyaddu ay tahay wax dadku leeyihiin, go'aanka shacbiguna uu yahay waxa keliya ee dowlad lagu maamuli karo. arrimahan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda wadamada geeska Afrika, Somaliland waxay ku keentay pressure oo wadamo waxa jira 40 sanadood aan iyagu dooranba madaxweyne iyo cidda matalaysa shacabka. madaxweynaha cusub ee isaguna la doortay, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, ayaa isaguna maanta dadka u sheegay in Somaliland ay wada guuleysatay, guushaasina ay tahay mid dhammaantood ay wada leeyihiin, isagoo u tacsiyadeeyay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo shalay lagu aasay magaalada Hargeysa. waanigoo Cabsaaq Axmed Jaamac iyo Sela 24 oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.